carab inta samee hadaadan bon dhalay ahayn ina cumar dhuule intaas ku kala ogaanayaan hadaadan bon dhalay ahayn ina cumar dhuule intaas ku kala ogaanayaan hadaadan bon dhalay ahayn ina cumar dhuule intaas ku kala ogaanayaan intaas ku kala ogaanaya kabtan ayuu bon hadii ay tahay wallahi ala nasabiyadana cad kuma leeyahay nin gob ana matid hadal gobeed ku hada hadal waxa tu hadashay maanta wax nin weyn ku hadlama war sidee aqligaaga yarka ah ku siiyay in aad cumar dhuule iyo family iyo gabooyaba aad ereyga ugu qoodhay xishood nin weyn baa tahay magaala lagu soo galiyay social media lagu dhex keenay sidaani si maahan isduugniyo wallahi billahi subhanallah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبر الدين سلام يا مركز أجوكتان إيسي كستو آدنو مغاليسان وحن ما تربينا كهذا برامج شد هذا كو عصوب وحن ما تربينا كهذا برامج كاس أي فرحية كويرا كاها هندسي كابتن أيوب وتقالكم هذا وكسو هذا برامج شد يبوق هذا صوت سبونال مركا وحن رباه كابتن أيوب إنا المد إلى هذا فرحية كويرا المد إلى هذا horta kabtan ayuuban ku hormarayaa waxa aad samaysay waa wax laga xishoodo waa wax laga yaqyaqsado hadal gumeed baad ku hadashay hadal yaani qof damiir leh oo dadnimo leh oo ku hadlin baa ku hadashay ninka aad leedahay waa boon buu noqonayaa oo ina cumar dhuule kula noqonaysaa iyo marka aad leedahay ama waxa noqonaysaa in hebel horta nin ka fiican ma jiro nin dhaamana ma jiro reerka aad boonta ku sheegaysna waa reer sharaf iyo cise iyo karaamo leh reer cumar dhuule waa reer mataqaanaa Soomaali weyn ku weyn waa reer mataqaanaa fanka iyo masraxa Soomaaliyeed aad looga jecel yahay waa reer mataqaanaa madaxa dushiisa noo saaran run ahaantii oo ka raali gelinayna waxyaalaha aniga ku hadlay afka dhalinyarada aad baan uga raali gelinayaa qoyskaas sidaas loola hadlo ama lagu soo qaato tusaale xun aad baan uga raali gelinayaa madaxa dushiisa ayay noo saareen reer cumar dhuule waa reer family aad iyo aad mataqaanaa u qiimo badan waa family mataqaanaa Soomaaliya oo dhan ku weyn ayuu marka baan soo noqonaya ayuu horta marar badan baan baraha bulshada ka daawad qaabka aad u hadashid iyo sida aad wax u wadina waa tii ugu jaahilsaneed ee adduunka abid aan qof Soomaali ku arko wallahi qof Soomaali oo ka reebaadiyay oo ka jaahilsan nolosheedii ma arag aniga kabtan ayuu ciidii ma dhaw waa saaxiibka qaaliya waa nin aan mataqaanaa aan waxba noo kala qarsoon si taxta loo kala qarsoon laakiin sida aad mataqaanaa reerkaas maanta ugu gaftay raali gelinteeda bix war nin rag baa ilaahay ka dhigay raali gelinteeda bix oo inta soo fiirsi waxaad badan reerkaas ciidamad baan saartay tusaale aan ku soo qaatay khaldane hal la iga raali ahaado waa hadal gubeed hadalkaas oo dhig waa hada taleegiyayis mid kale hadii kabtan ayuub baan leeyahay waxa maqli jiray baqashi farda la daaqada barkeed bi ismu daayay haddii uu maanta ahaan lahaa jifiyaha ugu sarreeya ma jarteen waxaan u malaynayaa waxaa la arki lahaa asagoo laamiga ku xaaraya la arki lahaa laakiin ma doonayo family ahaan in uu hoos ugu dhaco waan arrintaasna waan ka cudurdaaranayaa laakiin sida aad baraha bulshada aad soo gashid si cadiifad iyo qabyaalad aad biyaha u dhigtay wey iska daa waxaas ah horena waa kugu sheegay haddana waa kugu sheegay maraan kusoo wacayna waa kugu sheegay wani qabyaaladan faraha ka qaadnaa qabyaalad baasha ahayd biyahaagay jiirkaagay raacdaniyo waxaa iska daaniyo saaxiibkii waa taaba kaa qarnay iska daa waxaan ka bax si farsamaysan oo hadal gobeed oo murtila ku hadal marka hadlaysa qabyaalad in hebel baasaan alo in hebel haddu ka ahaan la hebel waxaas goorma laga tagay 91 oo malaysa 30 sano ka hor 2001 ilaa 10 la marayay man qabyaalad ka hadlaysaani waxaa iska daaniyo ka gacmeesha karaahiya ayuubow I will make sure aan ku dhahay inaan geed gaaban iyo geed dheerba u fuulo dadka YouTube-yada dadka ka xiray haagta ku sameeyo inaad dib ka soo bilowdo adiga oo karaahiye ah inaad dib ka soo bilowdaa balan igu ah farxiye ka weerar mid baan leeyahay farxiye ka weerar mid aan leeyahay waxay tahay farxiye adiga shimbirtii dhuustaha soo qaadan qofkii hadlaha soo qaadan horta mid baan ku weydiinaya farxiye ragga maxaa kugu diray adoo gabar hay weliga is haysta gabar ma arag adoo gabar ku dhagan lama arag maxaa ilaahay kuu daba dhigay ragga ka har meel fadhiisa rag ma nin baa isku qabtaa horta mideeda kale midda aan aadka uga xumaadaa waxay tahay farxiye ka weerar oo aan markaan daawadaba aan la yaabo qof allaale iyo qofkii hadal laguya ka dhaco waxay leedahay kabtanka waxay leedahay kanaalka laga xiro subxaanallah waa ku haagareynayaa
shalay anay lahayd waa kaa xiraya maanta kabtan ayuub berri mid kale war ninka youtube-ka channelka youtube-ka uu ku leeyahay waa inaad dislike-na ku qabataan subscribe-kana kala laabataan oo zero geysan zero kow ha ka soo bilaabo at least ama wax kala qaban karnaa waa inuu zero ka soo bilaabo midda labaad ee farxi kabiir aan waxa weeye maalin baa hadal soo tiri hadal aad loogu qoslay baastay hadalkaas oo aad gabdhaha ku wanaagsan lahayd war mataqaana Al-Cabaaskiina iyo wixii ma kala haraan wixii maalinta ka dambeeyay waa lagu qoslay marka Soomaalidu aad ugu qosashay oo waxa la yiri wallahi farxiyo ma naag dhiigle waa naag kartida waa runta hadalkaagiiba aad loo wado maalinta wixii ka dambeeyay ma aadan fariisan kii soo yiraahdo waa ku dhigantaa dhab farxiyo kabiir ka soo hadashay marka Al-Cabaaskiina iyo uftiina kala reeba ba dhibkaan noo keentay baa oran karnaa oo adiga laftigaaga yani kuwa kaasi waa shay argana xadaalad oo de adiga iyo danahaaga kuna laakiin kii hadlaba wax kanaalka laga xiro oo xoogaa waxa xaasinimada ugu dambeysay laakiin midna cidna kama kanaalka ma xiri kartid runta ku sheegay cidna kanaalka ma xiri kartid karaahiye ayuubow I will make sure aan ku dhahay inaan geed gaaban iyo geed dheerba u fuulo dadka youtube-yada dadka ka xiray haagta ku sameeyo inaad dib ka soo bilowdo adiga oo karaahiye ah inaad dib ka soo bilowdaa ballan igu ah ummadda Soomaaliyeed dadkaas inay karaamo iyo sharaf ay u haayaan ayay naga mudnaayeen nagama mudna inaan karaahiyada noocaan oo kala markuu soo caayo aan aamusno hodan Cumar Dhuule Facebook-eeda waa loo diray waa loo dhigay inbox-ka loo dhigay fiiriya ninkan aabaha iyo ima aragtay nasabiyadiina caynaya nasabiyad baad ku faantay waryaa waxaa tiri ninka gudoomiyaha ka ah ee Puntland Cabdirashiidow ama nin nasabaho in adeerkayo in hebel hebelaho ayeeye baydan islaamo qarniyadii hore inta dhintay lafooda abar wax ka waayay inta kacsatay aad tiri ama ninka ayeeye baydan heblaaye ay dhashay noqo oo nin nasabaho ree hebel noqo ama in Cumar Dhuule boon ah noqo horta boonnimo iyo nasabayeed xumo adigay wajigaaga ku taala because midgaan iyo nasab dhiman waxa ah shakhsiga xun like you iyo ka jannada laga waayo waryaa nasabiyadaad ku faantay iska daa adigaagaas aragga xun iyo kan aad leedahay Cumar Dhuule ku dhalay ayaydaadii sanaad iyo awgaagii sanaadan Cumar Dhuule iyo wuxuu dhalayba gaareen waryaa aniga maanta markaan xalay aan soo sheergareeyay matagaagi dad baa ay soo wacay igu dhahay kaas karaamo ma lahan haddaa u jawaabto calashaan qof dhintay oo meeyda ka soo qaad ha u jawaabin sababta lagugu jawaabayaan kuu sheegaa lo aad tahay oo doqon baa taho haddii lagaa aamuso inaad saxantaad isu maleeyahay haddii lagaa aamuso inaad saxantaad isu maleeyahay marka Cumar Dhuule waa marxuum waa qof naga hooseeya haddaad isleedahay ilmaha Cumar Dhuulena miiriyaha ma soo galaan ama aad tunjileecsanayso isleedahay tunjileecso brother ilma Cumar Dhuule aniga waxay yihiin walaalahay ila dhashay camal inta aan walaalkay ila dhashay u samayn lahaa ayaa ilma Cumar Dhuule u sameynaya oon ugu tastaa walaalahay saan ugu tastaa waryaa wax dhintay baa tahay jarmalkaad joogtaa maalinkaad soo galayso youtube-keed aflagaadeynaysa Cumar Dhuule oo kaa hooseeya ama qamri dhacayaad cabtay ama magafaa wax kugu soo sameeyo waxbaa kuu dhiman kabtan ayuub baan waxaan leeyahay reerkaas cimaamad bay kaa sugayaan nin rag baa ilaahay kaa dhigay nin dadnimo iyo geesinimo leh baa kugu ogaa si sharaf iyo karaamo leh ta usoo fariistay waxaa tiraahdaa war reerkaas waa iga dhacday baashii hal iga raalaha oo mataqaanaa reerkaas isa iyo sharaf iyo karaamo inaga mudan yihiin adeer waxaan ugu ceebay odayga daarood hadda dib xasuustay sharaftii iyo karaamadii ku noolaa inta soo noolaysid waxaa tiraahdaa reerkaas caamadayday waa ku tuuray hal iga raalaha intaasay kaaga xiranta hadalku haddii hal yahay laba lagama dhigo intaasay kaaga xiranta inaad tiraahda reerkaas maanta waxaan ka ahay dembi baan ka galay intaasaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii waxaan idin leeyahay barwaaqo iyo bashasha iyo karaamo ku noolaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barnaamijka haddii aad kale sii sheer gare sii like gare non subscribe gare barnaamijka aad iyo aad salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu